caradii cad cirka buluug hawada aad u qurux badneed nolol waxaa ku jirne oo aad u qurux badan aabbahay wuxuu ahaa ninka Soomaaliya ugu caansan oo la yaqaano sida ani liigu sheegay waay isaa u maqleen hadda anaka dhan adduunyada dhan ku kala qaybsanahay aad ooga xumahay Bitte. Die Toilette ist aber besetzt. Und bitte creme deine Hände ein. Die Hände eincremen und die Beine. Imra, die Toilette ist jetzt frei. Mach mal, wiege. Wie heißt sie nochmal? Genie oder Gina? Aua, du tust mir die ganze Zeit weh mit deinem Ring und mit deiner Uhr. Okay. Imra, wie weit bist du? Imra. macaalkiina muqdisho ka warramo hadda shir baa idinku socda soo maahan aniga ibrahim shaashahaan ama reer shaashahaan jariir weyne ama ha noqoto way garanay maxay ka qabtaa marka beesha caalamka maxay ka qabtaa yurubiyaanka maxay ka qabaan amerikaanka muxuu ka qabaa in marka maxaa filaysaa hadda waxaad leedahay british shir ka dhacayo inay natiijo ka soo baxayso base natiijada meel bay iska taallaa waa loogi Salam alaikum, Kapitän Schasch. Wie geht's? Abel, waxaa hadda sidiisiina sideed saac u buruga wixii wax xalasta isku diyaarsado waxaa diyaar aad tahay intaan waxaan ugu talagalay hadiyooyin mataqaanaa adeer intaan ugu talagalay okay insha allah markaan wadanka aniga ka soo baxay waxaan uga soo baxay nin siyaasi oo dalka ka soo baxaya nin dareemaya waxaan ahaa laakiin xaaladda markaa jirta inuu dagaalayo in mataqaanaa dhanka kale hooyadii baan kasoo tegay walaalahay aan tagno waxaan rajeynayaa tabalku waan dareemaynaa in culeyskaas uu jiro waa runtii aad bay u dhib badan tahay in famiilku inuu kala qaybsanaado soomaaliya waxaan ku nooleen famiil dhan baa wuxuu ku noolaa hal guryo waxaas maxaa u malaynayaa in ilaa iyo africa iyo yurub la daadsan yahay oo qof leeyahay magacii iyo dadnimadii uu soo sameeyey bal inaan dalka ku noqono aan mataqaanaa weli dee ixtiraam wuu iska jiraa idaacada baa nala soo yira waxbaa nala weydiinayaa Sprache ist das? Arabisch, Somalia gegen Südarabien. Guck, so manche Flagge. Guck mal. Das war in die 80ern. Das ist nicht mal, das war in den 70ern. Guck. Guck mal. Wo ist dein Papa? Da ist Aosha. Nein, das ist der nicht. Habt ihr gehört? Ibrahim Schad. Da ist der. Man sieht die Leute überhaupt gar nicht. Die sind so schwarz, man sieht keine. Da. Habt ihr gesehen? Ja. Der Vater. ابراهيم شاذ قائد المنتخب الصومالي يلعب كره مع اسماعيل مع الكره ماشي ومع صالح اللي عليه Er hatte viele Verehrer. Wo Elfmeter noch muss man haben gejubelt. Und ich glaube auch, wenn wir in Somalia wären, wären wir, glaube
glaube ich, nicht miteinander hier am Sitzen. Wow! Du hättest ein Termin. Ja, das ist die Wahrheit. Erwin Somalia, wären wir so wie hier die Töchter von Franz Beckenbauer. Und das ist ja. Man erklärt, Manager, Beruhe, Maler. High Society. High Society. السلام عليكم. ها أنا نسيت هاي. نفعمت هاي. الحمد لله. أبا وفي أي حال يصل هذا لنا غير كيسر. ها. أرين أصلي هذا. أيه. أيه. أوكي. أي مرة بتنتهي كيسي. انت كان طلياني قال مجر مركان يقف وين واي عندك بعد يوروب يقف وين عامل ما هذا الشيء انت كنت هي حتى وصعد بحافظ هذا يا ما أركني يا والله كان waxaan ka soo baxay Soomaaliya waxaan imid meesha Djibouti Ethiopia Sudan Libya Italia saas ku soo galay waxa way macnaha sheegadu waxa way doonta waxa way doon oo qaadas doonta marka oo nala soo diray badda aan soo galay nin kabtan ayaa maartay adoonta waday qof kale taa markii hore waday qofkii uu garawaayay markii jahadii uu garawaayay iyo waditaankii markaas kadib aniga aan ka bedelay marka meesha la soo baxay hataa jooy maartay waxa la wataa jahiya la wataa waxa la geedka kubiska dhinaca doonta la saartaa markii oo aan Liibi ka soo baxayn waan loo sheegay macnaha waxaan leeyahay waxaad fiirinaysiin baalkaan ku socda saas ku socdaan leeyahay saas ku socda nolol aqoonin baa ii bilaabatay marka waxaan filayay anigoo inay Afrika ay dhaanto oo wax la helayo Adesso io dormire con un mio amico a casa. Prima quando arrivo qua io ho trovato lavoro in borsa lavoro 6 mesi, dopo danno un altro 3 mesi. Dopo GLO è finito. Questo paese fino al 2004 io così. Adesso non c'è lavoro. 3 anni io non c'è lavoro. Da 3 anni non sto Adesso io voglio. Ecco, infatti, arriviamo a capire perché è venuto qui da noi. Ah, ok. Qual è la... Mia madre vive in Etiopia. Adesso io bisogna tutti prendere qua. La madre quanti anni ha? E mia madre 90 anni. Ah, ok, va bene. Cioè, essendo molto anziana, questo sto dicendo Sì. che per fare il ricongiungimento di un genitore Sì. bisogna dimostrare che questo genitore al suo paese è da solo, non ha nessuno. Sì, io sono altri fratelli. Uno fratello c'è a Addis Abeba, vive insieme a mia mamma. C'è un fratello che vive con la mamma? Sì. Se in realtà c'è un fratello suo che vive con lei, diventa più difficile. Perché qua dicono, vabbè, ma perché deve venire in Italia se al suo paese ha un'altra persona che la può aiutare a mantenere? Se lei mi dice che da 3 anni non sta lavorando... Mia madre vive in Addis Abeba 25 anni. Ho capito? Sì.
Noi sono stanchi perché tutti anni domani, domani, adesso non c'è sempre Somalia è guerra. Allora bisogna, mia madre vive insieme. marka hore waxaan rabay inaan kuu sheego laakiin asaga laftirkiisa baan adeerka aadan asaga guri ma haysto shaqo ma haysto baabuur ma haysto marka eine der keine Wohnung und keine Arbeit hatte, kann nicht so einfach sich kümmern. suurtagal ma noqonaysa in fikirkaasoo asaga qabaa inuu leeyahay laakiin ayeeyo mataqaanaa waxaan rabaa in la keeno dhibkaasi wuxuu ka taagan yahay xagga dhaqaalaha mataqaanaa ay ku degan tahay oo ay dhib ku qabin maaragta markaan lacag jiro noloshana sidaan uma adkeen aniga oday baan ahay oo mar walba xaalka marka uu mataqaanaa isbedel ku yimaado ninka xalinaya baan ahaa arrinta ayeeyada cimro daahir marka adiga okay labadii bilood saddexdii bilood markuu yidhahdaa weliba mararka qaada isxilqaamo waxaa tirahdaa okay marka adiga jarmalka miyaad suurtagal tahay ayeeyada inaad keento waxay kula tahay arrintaa Oh my god. Ani melo qurux badna inta ayay timaado. Ayay aab qof weyn waayo. Inta la caawiyo u baahan tahay. Qof kasta xaaladiisu og yahay. Aniga hada iska dhawr intee imaani aabe. Adiga ma sha Allah yeew imaani yaa la joogay. Ani hada ila joogto dhibaatin waa soo hayn kara ayidii. Abo waxa imaanaysa aabe aniga oo jeeda ilmahan hooshooda habeen maantana u socdaa therapy inta ka bax inta qof weyn ani Juckt dich die Haut noch oder ist das jetzt gut? Nein. Juckt nicht, okay. Und eincremen machst du auch schon. Ja. Das ist ganz wichtig. Wir ne? kämpfen Das darf man nicht damit. Wir vergessen. kämpfen damit. Jedes Mal, wenn ich sage, Mädels kommt, ich muss die wirklich Ja, zwingen. die Haut selber ist ja sehr schön weich geworden. Das Einzige, was mir auffällt, Ja. die Ima hat hier so Narbenstränge. Ja? Genau. Und da müssen wir einfach im Laufe des Wachstums weiter gucken, dass da diese Stränge nicht mehr werden, weil wenn das der Fall ist, Ja. dann müsste man eventuell nochmal drüber nachdenken, da eine operative Korrektur zu machen. Okay. Momentan sieht das aber nicht danach aus. Hier bin ich alles in allem eigentlich auch zufrieden. Man darf ja auch nie vergessen, was das für Verletzungen waren. Vorher bitte. Es ist immer noch groß, was uns passiert ist. Jeder Zweite fragt immer wieder, was ist mit diesen Kindern passiert. Die gucken sich die Kinder an und drehen sich um und berichten mir irgendwas am Herz als Mutter. Und meine Kinder sind jetzt Gott sei Dank durch die ganzen Therapien so weit, dass die so selbstbewusst sind und sagen können, es ist okay, wir haben Verbrennungen, aber es ist so, wir kommen damit klar. Es ist doch egal, ob die Leute uns gucken oder nicht. Es ist deren Sache. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann das, auch egal welche Therapie ich mache, ich kann das nicht ablegen. Ich werde mir immer Gedanken machen. Dieser Tag wird uns immer verfolgen. Warum soll ich die noch? Ich glaube, ich habe nichts. diese Hass, der hatte Absicht vor die Keller dorthin so einfach mit Flüssigkeit so bis die Treppe da oben. Brandanschlag war das. Wir wollten weglaufen, aber es hat nicht geklappt. Und so kam es, dass Ikra, Imra und ich uns sehr schwer verbrannt haben. Imran war damals ganz klein, den habe ich um ein Tuch gewickelt. Ikra war wirklich 7,5 Monate im Krankenhaus, Imra 6 Monate und da war meine Familie da. Und dann denke ich mir, manchmal ist es gut, du gibst und du kriegst aber auch irgendwann mal wieder was zurück. Es hat gezeigt, es ist uns was Schwieriges passiert. Es ist nicht nur mir was Schwieriges passiert, es ist uns allen was Schwieriges passiert. Ich will auch die Sonnencreme. meesha ma joogi karto Ethiopia ma joogi karto meeshaada may Ethiopia ma joogi karto arrinta dhaqaalaha ugu weyn waxaa layidhi guriga lagu jiro
waa $150 bishii ha haye cuntada iyo wixii kale oo sii dheer سيدي haye meeqo yaa bilka soo diraa marka 400 ilaa 350 waxaan kale oo jiro oo idinka aynan ka warhaynin Ethiopia waa lagu dhiban yahay meesha waxaa isku haysto cimridaar waxay noqotay qof lagu tartamayo ya bal ayada wax dhan lagu soo ayadoo dhan waxaa lagu soo diray marka adeerka Cabdullaahi meesha asaga 30 sano la joogay gabdho kale oo ayeeyay loo yahay iyo wax kale meesha waa joogaan Faaduma iyo ayeeyay iyo waxay isla degan iyo Cabdullaahi saddexdooda Faaduma gacyarihiida ayada Faaduma marka waxa way Cabdullaahi iska laaluushaysa waa garsoomay waxaa qaada iga aamus waayo anigana qof ahaan respect baan u hayaa waxyaalaha yar yar ka muslimin qofku markuu meesha joogo nolol uu baahan yahay sida intan yar oo marka balwad leh oo wax leh marka anay hal waxyaalaha yar yar oo meesha iminkaba arooskii waa baabulaayo u shalay maxaa uu soo tagtay Djibouti aad uu soo tagtay because Djibouti markaan joogay nin oo fanaan oo shaqaysto muusiga tumayo maartay laxama sameeyay heeso sameeyay ayaan ahay Soomaan markaan meeshaan imid nolol kale taan galay oo dhibaato ii keentay oo aniga xadnadkii waxaan cadeyna wax xanuunsado oo maartay oo saan aan ka fiicnaanay ayaan rajeynayaa hadduu ka soo baxo uma arrimi sida adigu yee meto ay waa kanay adeerkay aadan deeq waa kanay yani waa kanay hees soo qaaday lacagta talyaaniga lacag uu ku qaataa talyaaniga heesaha ku qaataa oo soo heesay YouTube ko soo geliyay waxa dhan waa kanay soo ma jeed asigoo heesay ka wanka haya isugu heesahan arkaa aadan deeq ha talyaaniga soo qaaday heesta أبا وكاسها متجان استجوب متجان ما استجوب تعمل وحاس استجوب حسبنا الله ونعم الوكيل دم ما راس اسكين راح يستوها استغفر الله العظيم عند رسول الله وقت سليم سنه ويس عنو قال حنبارك كان قاعد كان جي دير فل بس والله ما تعالى سيد الروما gerade wurde eine Ergotherapie was ne haben wir ein paar Tickets geguckt, vielleicht ob wir nach Äthiopien zu Aye gehen. Nein, wir wollen doch in die Türkei. Nach der Türkei? Trotzdem, ich will nicht. Warum nicht? Es wäre doch immer schön, meine Oma zu sehen. Ja. Und meine Adrian. Und wir würden dann mit Abu Shash fliegen. Und dann mal zu gucken, wie es ist, wie die Leute da leben. Ja, ist noch an. Nee, in Äthiopien ist kein Krieg, in Somalia ist Krieg. Ich würde gerne meine Oma sehen. Ich würde gerne meine... Nee, sie lebt. Ikra, was ist los mit dir, Ikra, heute? Sie ist am Leben, وهي نوشة يمضي من المحاولة إذا مسكينة أو شاشة مخلوط. Wie findet ihr das? Okay. Nicht okay, einfach. Könntet ihr euch das vorstellen? Nein, schnell Strom. Du im Rand. Meine Großoma. Gibt's da schöne Häuser? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch, ich bin auch Wo schlafen wir denn überhaupt? Aber wir werden nicht bei Oma schlafen. Sie hat auch nicht mal so viel Platz für so viele Leute. Wir sind ja viel und sie hat ja auch noch andere Leute da. Wohnen doch ihre Söhne da? Ja, eins wohnt mit ihr, der Abdullahi wohnt mit ihr, den werdet ihr auch kennen, das ist auch andere. Wie viele Opas haben wir noch? kuwan hadda soo socdo iyo kool laba jir iyo saddex jir ahaan aan ogaybo inta dadkii dhala haaste aan ogaybo hadda dad inta anuu joogaa la qaaday dadkii inta aniga iyo kan iyo yaa kale inkuu meeshaan joogno إلهي سقر مرة أنت ماشان كتو عيسى ما هذا حرينا إن شاء الله ولسه هذا أضيق سويدنا حري لا يسوى بدي غيرك إلهي كفوز أنت فيها إلهي ما ربح
والله في عنو اي اي ما شاء الله اجينا بالغدا اليوم يا الى حدين الله ربي لا حكسي الحمد لله الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم ياسمين السلام عليكم أيها في عنا لا يكون نبت كده لا يكون حبيبه وليدي وفي عنتها وليدي وفي عنتها إذا سمعت لي وفي عنتها وأنا خنتها روك كلية أساس سأفني ست حتى أي معان أنا ما تي تصدق جري مو فدين كريم سأفني سكرين ما شاء الله ما شاء الله تاي شوي Echt meine Hand machen. Ja, du kannst mit deinen Hand machen. Nee, es gibt Kabel, es gibt doch Kabel da. Ja. Ja. Alle Hilfe. Alle Hilfe, Sommer. وحاضر كلانكل ير هي كلانكل كان هويدي كلانكل كان بريس كدرجة سوما ما شاء الله ها هويدت مين ليلة لا مركا ما يهيد ما يعقر ما يعقر يا مركي صورت أذكرسو أصلاً إيو محمد ديق إيو حليمة حليمة عبدولي إساس تلسنا حقه وهيدو كانوا لقيبنا لقيبنا سد على أسكال سد على أسكال من بقول ماشي نلح وقول بك أنا نقول كين ماشي بمعنى أنت بمعنى إنه مسوق لها ماشي على كل واحد يسوي تو waxaan jiraa 17 sano laakiin aniga waxaa jooga ma aqaano maalinteeda wax oo shaqo ah ma hayo waa soo kacaya cunta karina ayay u karina habeenkii waa jiifanaa bis wax karina waxba ma qabto guriga la iska jooga waa ila fiican tahay sababtoo ah ayada anagoo yar ayada isoo korisay ma aha baaska hooyaday oo kale hooyaday xataa way kasii daran tahay sababtoo ah hooyaday way dhashle ha i dhasha ma xumo laakiin ayada isoo korisay ayay isoo korisay aniga هي ما كان أنا بليش أميل خانية هي خانية ترتيب الترياوي قدام أي معنتها عفوا كلو بالرواية أي هو فاضل ولا حلوين هذه كهاية ولا ديروا كل واحد جوكتين waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan ilaahay uga xamdinaya muddo dheer kadib wada joognaa waxaan kaloo anigii isku dayay
in aan jarmalka ku keeno aniga damsaash viisooyinka waxaan hooyadii yaan rabaa inaan keeno waxaan isa sii formulaar oo laleeyahay soo buuxiye formulaarka waxaa ku qoran marka ugu horeyso inaan aniga shaqeeyo أنا مش شقيق. حفظت يوغا لا. حفظ كاسي وعاسي شاكا كلا وايسكا والمنطق أنا لكن أنا نين دولة أي مصروف تاعنا نين دولة أي مصروفته قف بكيري كم. ما يا أنا نقاسي لا أنا نقاسي ما كمان بتعلى أنا نقاسي لكن وحكانا إن أسكت ضيي إن هذا جرمال كعاتمة هذا نقول واحد يسوي جرمال وإمارة أدو إلهي ذلك لا وحين الكلمة بعد ما يصيرون مركا هدي أدو يصيرون أنا جو أكون مصروفين هو يدا مصروفين هو هديت ما أدري أنا جا مصروف نقدر طيب أدي إن تشقيسي أو أقولي أدقنت هاي أو أدي كذا أتسكب بحسيد أو قولي نفسك يسوي ذي كفلي هاي شرعي قاعد ساجر ملكيان مركا وكها كنا وسوتون جوسنا ها سوق أنا بسوق له وحلا لا بكلمات الله تمات كلها ماي سوا حقوق العين كنقو هاي معانا كنقو إلى جملة سكوت أمبراي جملة هاي نقول أمبراي هاي حقوق العين بسم الله هاي عدد هاي محداي مايا جنة جب لها نفتح الدواء الدنيا نبقى قرية نقول Aber man kann dich doch irgendwie in Deutschland reinschmuggeln oder man kann doch einfach mit einem Flugzeug oder so. Ohne Pass können die nirgendwo hin. Mit dem Auto. Auto geht auch nicht im Rat. Also du wirst ja kontrolliert von Zoll. Würdet ihr hier leben? Nö, darauf könnt ihr warten, bis meine Kinder die Kinder und die Kinder haben. Sagt dann Gott sei Dank, sagt Alhamdulillah. Die Leute, die die Schuhe geputzt haben, die schlafen auf Steine. Ja. Komm, wie meine Füße aussehen, Mama. Ich dachte schon ein bisschen besser. Imran, nicht auf unser Bett. Ihr werdet euch gleich aber auch alle duschen, ne? Duscht euch aber auch alle gleich, ne? Ich habe heute schon geduscht. Ja, aber ihr duscht jetzt nochmal. waxaan soo marnay xaalado kala duwan aan hadda aan dhammaystiri karin oo aad yani inaan xusuustan aanan jecleen marxaladaha muqdisho markaan soo xasuustane waxaan dhalay iyo hal gabar labadii wiil waxay iga soo dhinteenay waddada aan soo maray waxaan ku soo duugay Itoobiya gudaheeda oo ficilka iyo asaagayga ay igaga hormareenay jacaylka hooyaday aan u qabo markaan jeclaysto inaan keligay wax qabsado markaan jeclaysto inaan dhoofo markaan jeclaysto inaan guursado waxaan soo xasuustaa in aan ka dhaqaaqi karin aanan ka tegi karin yacni hooyaday jacaylka aan u qabo wax walbaba siday ahaataba hadda annaga wax dhibaato aan qabno ma leh dhaqaaq baan sameeyaa moving baan sameeyaa maadaama oo dadkii dibadda ee jiray ay muddo ka fiic macnaha aadan iyo ayada iyo haddii ay liibiya joogeen iyo haddii ay talyaaniga yimideen waxay lagu soo bixiyay anaa bixin sida uu ilaahay ka dhigay unbay noqonaysaa iyo annaga talaalo leenaha ilaahna go-aanku ma fadhina annaga ma fadhino murugada waa lagu taagan yihin carruurtan waa lagu taagan yihin oo meesha siday uga bixi lahaayeen meeshaan yasmiin ilaahay gacanteeda unba wax u geliyey marka ayadana waa shaqaysaa ilmaheedana ilaahay wax buu ku siiyey ilmaheeda waatay dab galeen meel laga bixiyey ilaahay meel uu ka bixiyey ilmaha dabka gaartay iyo waxa lagu siiya adiga ma shaqayn kartaa ilmaha mas-uulka ahaa bis ayada intay meel tagta ma dhihi karta anaa shaqaysta qofka ha lii keeno
maxaa ma diiwaan garaysna marka idinkana waxaan leeyahay ha jiifaninoo wax barta midaan faadumo waxay sanaysaa marka boosada bisha shahaadada waa lagu shaqaystaa waa in meel lagu shaqaystaa qofka hadduu wax barto isagu bay wax tagaysaa waxaa way iska dhammaanayaane iskoolkaa bilowday markiis ilaahay ii wadana waa baxa insha allah adiga waxaa jeceshahay waxaa soo go-aansatay intaa baxdid haye dalkaaga hooyo soomaali haye weynaa haye maasha allah laba meelaan ka rabaa inaan ka tago Canada iyo Germany bay process in lagu diyaariyo u baahan tahay ama viisooyin lagu diyaariyo si aad inta uga qaadataan rajada iyo waxa aad haddaad tagto aad ka filaysid inaad ka noqoto maaragtay dadkeeda fiican yihiin ay wax walba ay suurtagalaan sida inta ay tahay ay ku bedelan tahay ay sida ay Ethiopia tahay inay ku bedelan tahay kana ay laga yaabaa adigana inaad sabirtid dhanka kalena gurigaadna la mas-uulka markii aan ka hadlo iyo arrimaheeda marka waxaan rajaynayaa in howlahaas aad ku filnaatay insha allah نور guriyada fiiyo iska soo leeyahay ما شاء الله هذه الفيري بذكر guriyashooda waa jajabeen welina kii uu taagan yahay alxamdulillah هذا واقع guriyay waa idiyaa waxa wal ku diyaariyay qol la kusinaa qol ah ha guriyana iska ما شاء الله waa igu jiraan أصلاً بنبغى يصير بنطلع على الرأي اللي يرجع ولكن حقيقة متأفرت هذا ما يصير الدين والله يبقى كالي اسمي كان بيرجع كالي فأنا بيرجع على الدنيا باسبورتكم كندا ايش كان يامي او مال بوجوغو او waxaan ku leeyahay cimro ma baridi aan soo leeyahay kuban horta ay waayay aan iiga wada meesha marar aan ka baxay in i waayay iro wallahi billahi intaas ay macaan hooyo macaan dadku tooda haysata moogta meeshaan ku jirta weyntan ku dhisay aadankeeda haye inta waxa ku jirta bakooro mugiin joogsado albaabkana la soo saaraa juk aligu soo jilbaan dhulka ku fara ani inta la joog ma mudaysa idanka ما suurtagal ma ilaahay ilaahay waa igu maqal rasuulkiisa ma baanan baan man ilaahay ka sheegay subhanallah albaabka waxa siyaala wash inta soo jik ku soo sina albaab jilbahan dhulka ku dhufana ay war adiga iska wada afkumaas wax ma dibaayeen ani ma ho alxamdulillah rabbil alamin shukru ayna allah wa malaikati ninkii adiga ka maarmo hata halkaas kelmad qabso adiga ya ninkii adiga saas ku dhihi karo hata ninkii saas ku yiraahdo wax la iska rabaa Soomaali waxa lagu maagayo xoolo lagu tabaya Soomaali wax ma haystaa ma haysan waxa ku noolaa ma hay mugin oo kaadi bas aan digana isoo dhacay waa lagu isbeddelay soo baxay واي أصوب بحين شو أديني ما يسمع والباب أنت سو حصل على سو صحورة نك سو شيء بكرة أنت أوجدت ترتيب وحياة قاركود وإكستريم ما فهمت Soomaali ما ورا وحياة قاركود أفلاك بابوس كشيء ما فهمت Soomaali واجران لكن سيروا يدو شيء سماه إلهي يوم هدان نبايا عملوا ظهر ما كدرفني ما كقبي وحده كما قبي الحمد لله عبد الله وحكوا هاي مالك عبد الله دقا
tiisoo ku joogaa soomaa allahu allah allahu rabbi allahu xasbi hada allahu allah allahu rabbi allahu xasbi hada aljalal Meine Oma will unbedingt nach Somalia wieder zurück. Und Fatima hat einen Antrag gestellt für Kanada zu ihrer Tante. Der Antrag dauert auch, es ist ja nicht so auf heute auf morgen. Ich habe höchstens gestern Abend 3-4 Stunden geschlafen. Ich wälze mich zu einer Richtung. Man guckt Lösungen, wie es weitergeht. Weil für uns ist es kein Problem. Wir fliegen in 3-4 Tagen wieder. Aber für sie, die werden hier zurückbleiben. Aber was kann man denn machen? waxaan kaa rabaa bisha markay dhammaato lacag baan kusoo dhiibay cimro dahar waxaan rabaa xamar inay geysid go-aanka ka qaad magaceeda cimro dahar way raacaysaa soo maha war marka midili waxaa wax kale huji kale ma kasoo bixi karo soomaaliya bes hadda intaan bixin baa kusin inaa lacagta mala wadi kartaa soomaali yaaqsidan keena anoo jamal allah aamin yaa rab maxaad u qaylinaysaa waa qaylinayna adiga madaxaada loogu qaylina wax kaloo dhib kale ma jira aniga isma haysano hargeysaan daanta hadda maxaan ku leeyahay hargeysaan dinta go anaaba tagin karaan ku isha marta afar maalin baafinaya qaladkeedu qaadanaa fiil afar maalin baafinaya idaacada liigu keenay ma tagi karto me gurigaa la keenaa intaa laga soo wadaa hadday dhacdane hadday dhacdane danaa waqtiga soo kireeyey waa cimro dahar la wada haddaa wadi weysa haddaa ku shigaysa أبو جوك بحسحو ووضع هذا اللي حاجة كان هذا أدية تمثل هذا واحد وقفصة أدية تمثل أنت كويسة أدية أنا وحكي بس منسة بحماتكم هذا اللي أنت كبحي كرتي إن شاء الله استجي أنا وكحنت هاي استجي أنا استجي أنا كبري أنا معنا محلية استجي أنا استجي وكحما استجي أنا استجي وكان خلدنيا بس استجي آمس وكبري أنا لا أنت اللي تساعد على الجوج اللي هو كبريا والكوسمنا أيضا ولا وحدة كوسمنا أدين واحد كذا الكوسمنا أنا قلت أنا كان وحاجة قفطان جورجينا لقي هذا اللي يلا أنا جينا قفطان لوكرينا بهنو شيء قويا دين تيل مع نحن دولار وقوة كده ما حكى بحكرة dalkooda waxaa waaye muqdisho sababtoo ah aniga Soomaali ahay muqdisho inaan ahay waa ogahay laakiin aniga inta ku soo qoray maxaa u raacay eeyadii inta uga hara qiimo weyn ay ugu leedahay sababtoo ah intaan dhan ayada Ilaahay isoo dhameysay ayadana isoo korisay sababtoo ah haddii ayada noolaa lahayn halahan dhan ma soo ekaa lahayn واحد استعمل وقالت عبد الوقاص مع السلامة وقاص هون ما بدي أنت أبي ما أنا أبي أسوي إني وأنا أبا أونين أبو أونين من وين تانين أضيع تهاي من حب هذا رو أسكت سنوني من وابل من الناس وابل Ciao. ما أنا قال هاي السلام عليكم هاي جيس
placed in a high-security compound within Mogadishu's international airport. History was made. We have taken this path to democracy. And now I want to congratulate Mohammed Abdulhali Farmajo. With President Mahamoud's mandate already expired, the new President Usman is sworn in. This victory belongs among them rebuilding the collapsed state institutions. He also had to deal with the massive poverty in the country. Farmajo holds two Somali US citizenship and was Prime Minister for 8 months. Mohammed Farmajo Deutschland ist meine Heimat. Auszuwandern, dazu bin ich zu lange hier. Ich tue alles, dass meine Kinder sich hier nicht fremd fühlen, weil sie hier geboren sind und Deutschland ihre Heimat ist. Jede Generation hat andere Bedürfnisse. Ich glaube nicht mehr, dass wir irgendwann alle in einem Ort zusammenleben werden.